waxaana wanaagsan idin lahaantiinba khiyaarta hawada nagala socotay ku soo dhawaada warbixin kooban oo aanu ku soo qaadanayno Itoobiya oo aruurinaysa ciidamadii ugu badnaa ee ku biira ama ka mid noqda qaybaha kala duwan ee ciidanka difaaca dalka Itoobiya. dowladda dalka Itoobiya ayaa waxa ay haatan bilowday in ay qorto dhammaanba cid kaste oo iyadu qaadi karta qoriga kana qaybgeli karta dagaalada faraha lagaga gubtay ee ka socda deegaamada waqooyi ee dalka Itoobiya. waxaana ciidamadani hortale lagu aruurinayaa meel kaste oo ka mid ah gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaamada Oromada iyo weliba shucuubta koonfureed, kuwaasi oo ah kuwa iyagu noqonaya amaba isqoraya ciidamada degdega loogu baahan yahay ee dhowaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali uu ku dhawaaqay. guud ahaanba magaalooyinka kala duwan ee dalka Itoobiya waxaa ka socda isqorista ciidamada, waxaana la aruurinayaa cid kaste oo iyadu haatan diyaar u ah in ay ku biirto amaba ay ka mid noqoto ciidamada dalka Itoobiya. waxaa ciidamadaasi difaaca dalka Itoobiya garab socda ciidamo kale oo iyaguna aad u tiro badan oo ay qoranayaan maamulada kala duwan ee dalka Itoobiya. ciidamadaasina waxaa lagu kala magacaabayaa ciidanka gaarka ah ee deegaamada dalkaasi Itoobiya ay leeyihiin, ama ciidamada gaarka u ah deegaan walba oo ka mid ah maamulada hoostaga dalka Itoobiya, iyo sidoo kale maleeshiyaad aad u tiro badan oo iyadana ay qoranayaan maamulada kala duwan ee dalka Itoobiya iyo weliba dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya. ciidamadani tirada badan ee la qorayo ayaa waxaa loo furayaa tababaro degdeg ah oo aan dhaafsiisanayn muddo 2 toddobaad ah ama toddobaada, waa kolba baahidu sida ay noqoto, waxaana isla markaba lagu shubayaa goobaha dagaalka. hadda ciidamada idiin muuqda ama sawirkan idiin muuqda, ciidamada ka muuqdaahi waa dhalinyaro aad u da'yar ama dhalinyaro kala duwan oo la aruuriyey oo ku sugan xero lagu magacaabo ama mid ka mid ah xeryaha tababarka ciidamada dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Burshaalaqo, waana deegaanka Oromada sida aan filayo. goobtani waxa ay ka mid tahay goobaha lagu aruurinayo ciidamada la doonayo sida degdega ah in ay uga qayb noqdaan dagaalka kooxda TPLF lagula jiro. arrinta xiisaha leh ayaa waxa ay tahay in ciidamadani marka la xareynayo ama xero kasta oo ciidamo lagu xareynayo inay ka baxayaan ciidamo kale oo iyaguna hor leh oo la tababaray. muddo 2 toddobaad ayay qaadanayaan. dhowaan ayay ahayd markii aanu halkan idinku soo gudbinay ku dhowaad 50,000 oo askari oo ka baxday dugsiga tababarka ee Huurso lagu magacaabo ee ku yaala deegaanka Soomaalida, oo ka mid ah meelaha ay dowladda Itoobiya ku leedahay saldhigyada ciidamadeed ee lagu tababaro dhalinyarada iyo weliba ciidanka markaasi ku biiraya ciidamada, amaba waa dugsi tababar oo ay ciidamada afantariga ahi ku bartaan xirfadaha kala duwan ee dhinaca militariga. haddaba dagaalka ayaa waxa uu u muuqdaa mid dowladda dalka Itoobiya ay ugu talagashay in uu daba dheeraado oo mustaqbalka ciidamada dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo weliba kooxaha iyagoo haatan halganka kula jiraahay in ay isla daba dheeraadaan, kadibna ciddii dad badan haysatay ay dalka u hadho. ciidamadan marka la qorayo waxa tababar ka baxaya sida aan sheegnayba 10,000 ama 10,000 oo kale oo ciidamo ah. waa wax laga yaabo in dalkii dhammaa uu isu rogay amaba uu isu bedelay xeryo ciidan oo qaar tababar u xaroonaya iyo qaar ka sii baxaya, qaar gelaya iyo qaar ka sii baxaya. meelaha ugu badan ee ay ciidamadu haatan tababarada ku qaadanayaan ayaa waxaa safka hore kaga jira deegaamada sida aan soo sheegnayba shucuubta koonfureed, Oromiya iyo weliba deegaanka Axmaarada. deegaanka Soomaalida waa jireen ciidamo dhowaan la soo tababaray, kuwaasna waxaan filayaa iyagana in ay safka hore geli doonaan, kuwa kalena dowladda deegaanku waa ay ku baaqday. haddaba maamulka deegaanka Axmaarada ayaa isna dhinaciisa maanta waxa uu soo bandhigay 10,000 oo dhalinyaro ah oo iyaguna haatan ama 10,000 oo dad ah, ma aha dhalinyaro, waa 10,000 oo dad ah oo iyaguna haatan dhammaystay tababarkii degdega ahaa ee ciidanimada. halkani waa deegaanka Axmaarada, waa magaalada Gondar oo ah caasimadda labaad ee deegaanka Axmaarada,
waxay xukuntaa gobollo dhowr ah ama ilaa iyo 6 gobol oo ka mid ah gobollada deegaanka Axmaarada ciidamadani deegaanyada ah ee idin muuqda waxa ay dhamaysteen baa la yiri tababarkii degdega ahaa ee loogu talagalay in ay ciidamadu ku qaataan amaba dadka la ciidamaynayay inay qaataan waa tababar fudud oo loogu talagalay in maaragtay to xilliga dagaalka ay isticmaalaan malahayga ee tababar fudud hadaad maqasho waa sida loo isticmaalo xabadaha iyo qoryaha iyo adugu woobjacda iyo wax uun maaragtay noocaasa ciidamadani guud ahaanba dalka Itoobiya oo dhan ayaa laga qorayaa waxaana qorista ciidamada iyo waliba kuwa kale ee iyaguna ka baxaya tababaradu ay daba socdaan baaqi isdaba joog ahaa ee ay dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ugu baaqaysay bulshada dalkaasi Itoobiya dhammaantoodba inay iska xaadiriyaan goobaha tababarada si ay u qaataan tababar military ayna uga hortagaan kooxda TPLF haddaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ayaa maalin ka hor markii ay ku dhawaaqday wasaaradda difaaca dalka Itoobiya in ay ka baxeen xabad joojintii ay dhinacooda ku dhawaaqeen waxa isaguna uu ugu baaqay qof kaste oo Itoobiyana oo xarig dhul yaala ka talaabsan kara in uu iska xaadiriyo goobaha dagaalka amaba goobaha tababarka shuruudu kuma jirto haddii aad horay ciidan u ahayd waxa weeye waxa tagaysaa meesha lagu hardamayo haddii aad maaragtaa dhalinyaro yar tahay oo cusub oo dhowr iyo 10 jir ana waxa tagaysaa goobaha lagu qaato traininka ciidannimo haddii aad qof weyn oo muddo kale tahayna oo fahmi karto maaragtay qaabka loo isticmaalo ama xabadda looga cararo ama looga dhunto ama la isu gaabiyo ayadana waxa weeye waa jiida hore tagaysaa marka baaqi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu dhalay ciidamadaasi aad moodo daqsiga meesha lagu aruuriyay meel walba oo Itoobiya kamida haatan lagu tababarayo ama tababarka loogu xidhayo dhammaanba ciidamadani ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan difaaca loogu jiro dawladnimada dalka Itoobiya sidii looga difaaci lahaa kooxaha mucaaradka ah ee ay ugu horeyso kooxda TPLF oo iyadu dharbaaxooyin isdaba jooga la daba taagneed ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo waliba ciidanka maamulka Axmaarada iyo sidoo kale ciidamada huwanta dawladdu maalin ka hor waxa ay sheegtay inay ka baxday xabad joojintii ay horay ugu dhawaaqday su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay maxay ka dhigan tahay xabad joojinta ay ka noqotay dawladda Itoobiya goorma ay xabaddu joogsatay diyaaraduhu waa dagaalamayeen madaafiicda waa la isku garaacayay taangiyada waa laga kala cararayay ciidanku iyaga oo maxaan ku raahdaa ay to dagaalamayaan la arkayay hal saacada dagaalku ma aanu joogsan haddana dawladdu waxa ay sheegtay in ay ka baxday amaba ay ka noqotay xabad joojintii halka dhinaca ahayd ilaa iyo haatanna kadib xabad joojintii wax soo kordhay oo ay dawladdu soo kordhisay ma muuqdaan waxaan se filayaa in ciidamadani tirada badan iyo waliba ciidamadii kale ee ka sii tiro badnaa ee dhawaan huurso tababarka loogu soo xidhay dhammaantoodba in ay goobaha dagaalka isugu tageen TPLF hadda loo yaabaa waxa hubaala in ciidamada la tababarayo iyo kuwa tababarka ka baxay iyo kuwii hore markii la isku daro inayba ka badanayaan dadka Tigreega ah ee maxaan ku idhaahdaa gobolka dhan ama deegaanka dhan ee Tigreega dadka ku nool in ayba ciidamadu baac dheeraanayaan si kastaba ha ahaatee bal hadda kolba waxa ay soo kordhiyaan ciidamadani qundhada iyo maandhada noqday ee wax lagu qiyaasa aan la garanaynin ee sidii daqsigii ama aad moodo shinin malab dhalinaysa meesha ku aruursan marka la geeyo goobaha dagaalka guulaha ay gaadhaan iyo waliba jabka iyo haraaga ay ku dhigaan kooxda TPLF idinka ayaa noqon doona daawadayaal kuwa ugu horeeya ee aan la wadaagi doono haddii uu waqtiguba inoo saamaxo oo aan isla gaadhno insha Allahu tacaala waayaha ciidankani iyo waxqabadkooda si kastaba ha ahaatee dawladda dalka Itoobiya abaabulka ay ku jirto ee dhinaca ciidamaynta ayaa cirkaasi isagu isku shareeray waxaana uu haatan marayaa marxaladii ugu adkeyd ee dhammaanba gobolada iyo deegaamada kala duwan ee dalka Itoobiya lagaga doonayo in ay keenaan ciidamo xoog leh oo cashar u dhiga maleeshiyaadka haatan iyagu dalka Itoobiya uu cabsida ka qabo in ay afgambiyaan muhiimadda ayaa waxa ay tahay waxa dadka loo aruurinayo loo dagaalamayo
ma aha dawlad shishe oo dalka Ethiopia kusoo duushay ee waa gudihii Ethiopia waxa dagaalamaya waa gudihii Ethiopia waa Axmaaro iyo Tigray Ethiopia inteeda kalena labadaasi ayaa ay u kala hilinaysaa dhammaantood se waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar inay ka gaaraan hawlgallada isdaba joogga ah ee mid waliba dhinaceeda ay dadaalka xoog leh ugu jirto sidii mid kale ay u weeqi lahayd meel kasta oo joogtaanba wararka iyo warbixinada kala duwan ee guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaan dhinaca iyo Ethiopia waxaad kala socon doontaan warbaahinta madaxa bannaan ee Daljira TV anigu waa Galad Xasan daaha gadaashiisa ayaan idin kala soo hadlayay tan iyo isarag maqal dambe fi amaanillah